naxariistay khadar daariga waxa ku dhalatay magaalada Hargeysa sanadkii 1957 waxbarashadii diiniga iyo maadigaba ahayd waxay ku qaadatay magaalada Hargeysa. Allah u naxariistay khadar daariga waxay fanka ku soo biirtay sanadkii 1974 waqtigaasi oo ay ku jirtay fasalka lixaad ee dugsiga dhexe ee Riis ee magaalada Hargeysa kaasi oo dhanka koonfureed kaga beegan tiyaatarkii weynaa magaalada Hargeysa. Allah u naxariistay khadar daariga inkastoo ay waagaasi gabar yar ahayd waxa sabab u ahayd inay ku biirto baada fanka kadib markii iyada iyo arday ay ku jirta ay ka qayb galeen xaflad heeso oo lagu qabanayay dugsiga Women's Clubka ee Hargeysa. halkaasi oo kadib Idris Cigaal saxafigii ruuc cadaaga ahaa waqtigaasi haystay idaacadda Radio Hargeysa oo ku qancay muhiimada faneed ee marxuumad khadar daariga. Allah u naxariistay khadar daariga waxa heestii ugu horeysay ee ay ku luuqayso u dhiibay isla markaasina loo qabtay idaacadda abwaan maxamed cabdi warax oo reer Hargeysa ahaa kaasi oo isna geeriyooday sanadihii dhawaa ee la soo dhaafay. heestaasi bilowga oo ahayd fanka khadar daariga waxa ereyadeeda ka mid ahaa afka lagama sheegto adigoon jacayl arag looma urxumaadee. isla sanadkaasi 1974 waxay khadar daariga hogaamiye ama baaxidi ka noqotay riwaayadii loo oran jiray jacayl kariwa oo ay ugu horeysay Sara Ahmed Jaamac hase ahaatee ay khadri qaybaheedii dambe iyadu qaadatay kaalintii Sahra. sanadkii 1975 waxay sidoo kale aktarada ama baaxidi ka noqotay riwaayadii loo oran jiray Jin iyo Jacayl oo iyana sameeyay Xasan Xaaji Cabdullaahi Xasan Geli taasi oo ay wada jiray oo hogaaminayeen Ahmed Cali Cigaal iyo khadar daahir. intaasi kadib muhiimadii faneed ee fanaanada khadar daariga oo cirka isku shareertay awgeed bulshada Soomaaliduna ay aad u jeclaysteen waxay keentay in abwaan kasta oo door bido in khadra uu heesiisa qubanaha iyo dhinaca riwaayadaha kaalin ka siiyo. riwaayadaha caanka noqday masraxiyada suugaanta Soomaalida aad looga jeclaystay ee ay khadar daariga hormuudka ka ahayd waxaa ka mid ahaa doob qalanjadii gabay dirgamaha jacaylku saaxiibka marna waa sidmarna waa sababta biyo sare tagay waa la sugayaa abulwaana la yaab waa madaysa dunyadu dadkuna way matirayaan ninba tacabkii talo kaamal beeray nasiibka isuma qado. heesaha qubanaha ee abwaanadu teelteelka ugu dhiibeen ee aan riwaayad ku jirin oo aan qiyaas lahayn iyo qaar kaloo badan. khadar daariga tan iyo markii ay fanka ku biirtay ilaa hadda waxay ahayd fanaanad aad loo wada jecel yahay la ixtiraamo dadkeeda jecel ixtiraam badan dadkana ku yar iyo ku weyn ay asxaab yihiin. Allah u naxariistay khadar daariga waxay maalmihii ugu dambeeyay u jiftay isbitaalka International ee magaalada Hargeysa xanuun ku soo booday kaasi oo sababay geerida marxuumada. Allah u naxariistay khadar daariga. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.